gargaarka raashinka oo maanta mar kale soo gaaray degmada Xudur ee xarunta gobolka Bokool oo diyaaradaha ay keeneen waxa ay gaarayaan 49 tan waxaana lagu wareejiyay agaasimaha guud ee madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin xubnaha maamulka gobolka Bokool iyo kan degmada Xudur oo gargaarka raashinka halkan markii lagu dajiyay lagu wareejiyay gargaarkan ayaa ah kii ugu horeeyay oo ka yimaada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka iyo tan Koonfur Galbeed oo halkan ay soo gaarsiiyeen raashinkaas oo la sheegay in ay baxsadeen dad ku nool dalka dibadiisa oo ugu talagaleen bulshada xaaladda bani'aadanimo haysata ee ku nool magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokool kusimaha gudoomiyaha degmada Xudur ahna gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka gobolka Bokool ayaa waxa ay ka warbixiyeen raashinka gargaarka ah iyo sida ay ugu talagaleen inay u qaybiyaan raashinka Xudur hadeeri afartan isagaal tangu todoba diyaari la gashay insha Allah raashinkan maadaama garsheeta dhimani laakiin isla geenimada kooyaha maylanaba dadkii raashinkan hadii bidi ilaahay idin shay inuu wali rajaynaa waana weela doonay dadkii lanka tala galay geysii doon oo masaakinta lanka tala galay in dawladda iyo boosta iyo ogoonta ilankii waa badabshay badas dansanas yaasi doon hadii ilaahay era onaanu deeri dad oo diaspora dad ganacsato iyo wasaaradda oo maareyntii masiibooyinka antii oo raashinkaasay hadeersidii gobolka Bokool mayba mahadnagaan mahadgaareen jeediyana dadka kale oo ganacsatada iyo dadka diaspora ay mayba insii jeediyana sidii oo lahanka sii gurmadalay umada gargaarka kan oo hadiisan aragahay tan wayba ku sii horeeyay dhowr gargaar oo hana geysiyeen daruuro iyo salaad jeeri agaasimaha guud ee madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin ayaa waxa uu sharaxayaa inta tan ee halkan maanta la soo gaarsiiyay gargaarka ah iyo waliba waxa uu isugu jiro raashinka maanta diyaaradaha ay keeneen magaalada Xudur raashinkan marka ma hina diirsimay dawladda federaalka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka wasiirka Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirka mayba qorsheynta wasiirka oo mas'uul maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ya ila mayba isteemayni la hadalay mayba waqti kasta mayba hani la hadalaayaan si mayba hubsadan in raashinka mayba hadeeri degmo Xudur hadeeri marka eedeeda mayba ka faraxsan ka madaxtooy ahaan oo wakiilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ma cadeeyna mayba in raashinka mayba inta kala wareegni waan insha Allah qaybtii mayba wajiga lama la wareegni insha Allah وجود كل من ما يبغى ونديار جرون كجار وأنا شان وأنا الوريق دونا راشين كمان نسكجار هم بور يبريز السكر السليد التمر ما يبغى يعني نسكجار إن شاء الله مرة جاي وأن تنشم يبغى أفرتن يوم يبغى سجال تن إن شاء الله يوم سنة ما يبغى يا رجال إن شاء الله horey ayaa dad ganacsato ah sidan oo kale oo ka jawaabay baaqi madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen halkan gargaar u keenay tan waxay qayb ka tahay gargaar dhanka dawladda ka yimid عدن حسني يونيفرسال TV حضر بكول